بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaanu maanta halkan isugu yimi wadiba bahda warbaahinta waxaanu ku hadlaynaa afka iyo fikirka ilaa iyo 9 TV oo halkan ku joogno oo dhamaantood ah creamkii iyo labeentii TV-yada waxaanu arintan ka hadlaynaa waxa weeyaan in ururkii Soldier ay ku dhacday yani wax aanan ka filanaynin in ururkii Soldier uu cadow ku noqday warbaahintii dooratay ee uu matalayay marka TV-yadan waxay halkan kaga tashadeen isla markaana go'aan aan ku gaadhan go'aankan ku soo saarnay in laga tashado oo hadii la beenkeedii shir la isugu yimaado 23 bisha shirkaas oo ah mid ay ka tashiya oo markii xuuto la halaabay ee uu la ambaday ururkii mihnadayaasha saxafiyiinta ee Soldier markii uu caqabado badan iyo jilaafooyin badan u dhigay warbaahintii soo dooratay markii isagu naxli iyo magaranaysa kala jabin uu ku abuuray isla markaana uu xukuumadda dabada galiyay oo si alaaliyo sidii uu doono uu isagu cadow ugu noqday warbaahintii waxaan doonaynaa in aanu ay ka tashigaas wax badan ay halka ay ka tashiga la isugu imanay laga tashan doonaa marka ururku waa ururkii mihnadayaasha waa urur sharaf ciisi iyo karaamay naga mudan laakiin cid la ambatay la habowday ee kharibtay ururkii wax xuuto weeyaan xuutana maanta waxaynu kaga tashanaynaa in aanu magaranaysa kalsoonideeni wax kalsooniyo noo haya ma jirto wax kalsooniyo aynu ku qabnaa ma jirto kalsoonida in laga laabto oo dabeetana ay ka tashayno saas magaranaysa isugu nimaadno maalinta maanta halka waxaan isugu nimi anoo TV-yada madaxa banaanay Soomaaliland inaan laba eray kan idhaahno aragtideeda ku aadan hoggaanka Soldier waa hoggaankii aanu dooranay waa urur ay ku midaysan yihiin xirfadlayaasha warbaahinta Soomaaliland iyadoo sida ay tahay waxaan u aragnaa hoggaanka Soldier oo uu gudoomiyuhu kow ka yahay inuu noqday urur aan u adeegayn xirfadlayaashii warbaahinta waxaan u aragnaa urur la ambaday oo xuuto uu hoggaamintii ururka Soldier uu godmadow ku riday waxaanu marag ka nahay oo marxaati ka nahay tiraba dhowr jeer inay soo noqnoqotay inuu xuuto eriyado xirfadlayaashii ay ahayd inuu xuquuqdooda u baadi doono oo uu iyaga matalo inuu noqday mid ka soo horjeeda waxaan u aragnaa inuu noqday hoggaan dabada geliya xukuumadda oo miciin biday in kolba meelaha uu danihiisa gaarka ka arko oo xuuto la jaal noqdo annagu waxaan halkan isugu nimi xuuto cod baa lagu keenay meeshu ma aha boqortooyo cid siday doonto ugu tagrifasho oo ay haysato oo danaheeda ku maamulato waa hoggaan inay badbaadiyaan warbaahinta oo u adeegaan xirfadlayaasha oo dibtooda iyo baahiyahooda ka shaqeeyaan maaha meel lagu cantarufufo adduun lagu shaqaysto waxaan isugu nimi inaan aayaha ka tashano Soldier inaan aayaha xirfadlayaasha ka talino oo shirweyne isugu nimaadno xuuto sidii uu codku ugu yimi buu ka baxayaa mararag way istaba marayaan xuuto kolba yaanu xukuumadda dabada gelinin waxaanu hoggaanka iyo boardka kula talinaynaa awood baad u leedihiin haddii aad aragtaan oo xeerku idinku siinaya in haddii mijihii sidii loo socday u wadi waayo hoggaanku inaad bedeshaan gacmihiinaan idin haysa inaad ku dhiirataan waxba yeedaan deeb qoladaana waxa la waxba yeedaan biqine xuuto waxba idin ma hayo gacantiinaad ku doorateen gacantiinaad ku bedelaysaan horta taa ogaada ujeedada koowaad aynu maanta halkan isugu nimay haddaynu nahay bahda warbaahinta gaar ahaanna ilaa 9 TV oo ah labeenta TV-yada dalka waxa weeye hoggaanka ururka saxafiyiinta ee Soldier ma yahay mid wadi karaya saxaafadda madaxa bannaan su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay haddii xuuto loo doortay inuu noqdo hoggaamiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland xuuto shaqadii loo igmaday ma ka soo baxaya jawaabtu waxay tahay xuuto shaqadii loo igmaday kama soo bixin waanu ku fashilmay waxaan wada qaldan la maray hoggaankii ururka saxafiyiinta ee loo doortay isagoo uga faa'iideystay ujeedooyin isaga u gaara waxaanu adkaynaynaa oo
warbaahinta ku dhiirigelinaynaa in laga soo qayb galo shirka la cilaamiyay 23 bisha inuu dhaco xubnaha Sooljana ayagana waxaan ku baaqayaa markii hore gacantiina ayaa ku doorateen Xuuto cidda idinka iyo Xuuto ama taashaana waa ururka saxaafadda Soomaaliland saxaafadii Soomaaliland hadday maanta Xuuto ka soo horjeesatay idinkuna waxaan idin kula talinaynaa ina Xuuto idinkuna go'aan ka gaadhaan ujeedada ugu muhiimsan aan ugu nimina waxa weeye inaanu Xuuto si ahaan karin siina wadi karin ururka hoggaanka saxafiyiinta xirfaddu waa xirfad oo qofka xirfadyahanka ah qof wax walba xiriya intii imaka uu Xuuto joogay waxaad moodeen wax badan isbedeleen xoolaha ayaa waxa loo sameeyaa ood si habar dugaag looga celiyo haddii aanay oodaasi jirin xoolaha sidii cid waliba waa halis buu u noqonaysaa tuugii bay halis u noqonaysaa waxay habar dugaag oo dhan bay halis u noqonaysaa Soolja waxay ahaan jirtay deer ay ku jiraan saxafiyiintu laakiin maanta barbanaan ayay taagan yihiin maalintii Xuuto la doortay ayuu oodii mid mar qaaday tii u dambeysana wuxuu qaaday maalin dhaweed oo aan sii fogeyn dabeetana waxa leeyahay saxafiyiinta Soomaaliland meel kasta ay joogaan meel banaan ayay joogaan oo deerkoodii waxa dumiyay ninaan ehel u ahayn saxaafadda waxaana jira ilaa 5 urur oo saxaafadda Soomaaliland ayaa jiray mid wuxuu ahaa Wicha midna Soolja mid wuxuu ahaa UST oo waxa sameeyay wasiirka hore warfaafinta Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse midna waxa sameeyay Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo sidoo kale online ka iyaguna qaar lahaa intaasoo urur baa jirtay Xuuto sidoo uu waday ayaa wuxuu ku soo koobay waxa jira hal urur oo kaliya waxaana soo raacay buu yiri Wicha ma soo raacdo baan leenahay waxa jira intaas oo urur oo qolada muxuu ahaayay Siba oo telefishinada Soomaaliland ay leeyihiin online ka oo iyaguna mid leh UST oo iyaduna ahaan jirtay dalada guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland oo maca Soolja barigaasi hoos iman jirtay marka isku soo wada duubo waxay u baahan tahay talo qaran in la isaga yimaado in lagu ogaado cidda difaacaysa saxafiga ka xanuunsanaya dawasiina muxuu ahaayay u hadlaysa ka xidhan u hadlaysa ka wax kala tabanayana cidii wax la baadi dooni lahayd laakiin uma baahna qof isagoo cidii muxuu ahaayay halku isagu saxaafadda si uu ka difaaci lahaa isagoo qof soo hor cararaya looma baahna waxaanu leenahay Xuuto waa Xuuto laakiin ma aha Sooljo Xuuto gudoomiye ma aha mana aqoonsan inuu gudoomiye u yahay laakiin waxaanu aqoonsanay inuu yahay Xuuto oo kamaramaankiisii hore ahaan jiray inuu dib isugu soo noqdo dabeetana saxaafadda intii muxuu ahaayay hadda taladeeda haysa ay ka go'aamiso halka la dhigayo ama halka la dajinayo ururka Soolja haddii ay sidaas ku sii socotana waxay noqonaysaa wax burburay oo aan sii shaqeynayn marka raqba waa ku rageedaha loo kaco Soolja ma odhan la aad iyo aad baad maasantay marka hore dhammaan bahda warbaahinta maanta halkan ku kulmay maaha waxay ku kulmeen in laablaka iyo sidoo kale jibo ay ku hadlayaan waa dareen taabtay oo guud ahaan warbaahinta Soomaaliland badiba intii labeen tahay iyo warbaahintii oo isugu jirtaan mas'uuliyiin iyo sidoo kale dadkii xirfadda ehelka u ahaa oo ay taabatay dareen ay ka qabaan hoggaanka Soolja iyo sidoo kale nidaamka uu wado oo ay salug baan ka muujiyeen taasoo u muuqata in muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo kordhaysay kala dhawaysiyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan oo qaarna lagu tilmaamayo walaweyn iyo sidoo kale warbaahin kale oo noocyo kala qaarna la gelinayo inay yihiin bios warbaahinta Soomaaliland waxaanu aaminsanahay inay mid tahay laakiin hoggaanka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja inuu yahay mid ka bayray tubtii marka horeba loo doortay oo yahay mid cid u xaqlinaya ka warbaahin ahaan iyo mas'uuliyiin ahaanba waxaan ku baaqaynaa inaan isugu imanayno kulan ballaaran oo warbaahinta Soomaaliland ay kaga tashanayso aayaheeda ku aadan
ururka suxufiyiinta Soomaaliland Soolja waliba uu hoggaanka ka yahay Xuuto waana madal tan ka balaaran ayaynu kaga arsan doonaa kolley ururka Soolja waxyaabihii loo asaasay iyo waxa uu taagan yahay cid kasta iyo nin kasta oo saxafi maanta uu ka warqabaa laakiin muddooyinku dambe wuxuu u muuqdaa mid maalinta ka sii dambaysa ka sii daraya oo god ku dhacaya ururka saxaafadana de saxaafadda Soomaaliland ayuu dhex u yahay saxaafadda xorriyadeeda iyo xaqeega inuu soo dhiciyo ayuu asaasan yahay laakiin tii waxay moodaa muddooyinku dambeeyay inuu ka weecday marka maanta waxaanu halkan u joognaa in aan lagu sii daawan karin Soolja maanta halka ay marayso Soolja ay noqoto hal qof oo boorso ku sita laakiin waxaanu dawlad dooranay xubno tiro badan oo tiradooda 15 tahay 15 kaasi hadduu qof khaldamo 14 kale way joogaan waxaan leeyahay markaa boorka Soolja waa baldib iskugu noqda wixii khaldan annagoo banaanka joogna ayaa arkayna annagu inaanu hadalno maanta ma ahayn ee waxay ahayd inay boorku hadlaan oo ay ka hadlaan khaladaadka iyo gafafka ku socda saxaafadda Soomaaliland runtii anu waxaan la hadlayaa boorka baldib iskugu noqda oo waxaad isweydiisaan maxaa khaldan maxaa dad aan maanta warbaahinta aan lagu arki jirin dad aan waxba dhaleecayn jirin waxa uga soo muuqdeen meesha waxa markaan aragnay gafafka joogtada ee soo socday waxaan noo cadaatay inaanu ka hadalno inaanu tusno sida raggiiga hore ku dhawaaqayna waxa iman doonta in ay ka tashi balaaran oo saxaafadda Soomaaliland 23 bisha lagu dhawaaqo taasoo lagaga tashanayo de mihnadlayaasha iyo cidda shaqadan khusayso haddii Soolja saxdana de waa halkeego ay boorku dib isku tashadaan laakiin annagu mar kasta waxaan u taaganahay inaanu inagu ilaalino shaqadiina